alla subxaanahu wa tacaala markii abuurayay aadamaha xilli ayuu caayimay inay dhintaan sidoo kale alla subxaanahu wa tacaala sayo tarman aadamuhu wuxuu sameeyay lab iyo dhadi waxa uu alla amray inay saas ku tarmaan aadamuhu laakiin waxa dhacday in qoomka yimaadaan qaacidan rabbaniga ah waxaana la yimaadeen dhaqan aan hore loo sameyn dadkii ka horeeyana aanay ku soo dhaqmin haddaba qoomkaasi ahaayeen sidoo kale nabigii loo soo diray ahaayeen xageese ayay ku dambeeyeen su'aalahaas oo dhan barnaamijkan maanta ayaan kaga jawaabi doonaa nabi luud waxa daruuha nabi ibraahim calayhi salaam tarsimadiisuna waxa noqonaysaa luud ibn Haran ibn Azar nabi luud waxa dhalay nabi ibraahim walaalkii calayhi salaatu wassalaam nabiyullaahi luud waxa ku dhashay magaalada baabil ee waqooyiga ciraaq ku taala nabi luud isagoo yar ayuu abiir dhintay waxaana kafaalo qaaday awgii Azar waxaana noolaa adeerkii ibraahim calayhi salaam nabi ibraahim iyo nabi luud waxay kuwa saaxiib ah markii nabi ibraahim lagu ridiyay dabka cid quraata lumaysay waxay luud calayhi salaam kadibna xarumayay xaaskiisii saara nabi ibraahim markii raacay qoomkiisii wuxuu iskaga jirooday magaaladiisii baabil waxaan uu jirooday magaalada ama dhulka hadda loo yaqaano Falastiin iyo Urdun waxaana safar ku weerinayay xaaskiisii iyo nabiyullaahi luud nabiyullaahi ibraahim markii uu tagay wax halkaas ka bilaabay dacwadiisii muddo kadib wuxuu alla subxaanahu wa tacaala ka dhigay luud nabi waxaana loo diray qoom degna meel la dhaho Zutum waxaana ku taala wabiga Urdun waxaana u dhowdahay xeebta loo yaqaano Bahrul Mayit waxa hayeen laba reer oo aad isku dhaxgalay dhulka degnaayana wuxuu ahaa mid alla u dhameeyay nimcadii oo dhan arigooduna meel fog lama geey jirin oo guriga hareerada ay daaqi jireen waxay lahaayeen boqortooyo yar oo hoostiga jirtay Zutum iyo magaalooyinka ku dhow wax magaalada ku noolaa dad aad u xun oo dhaqanka yaqaanaana aan hore loo arag wadadii ku horeeyna aan aqaanin qoomku waxa aan ku hayeen inuu nin kale wax ka raadiyo waxaana ahayn dadkii ugu horeeyay dhaqanxumadaas la yimaada ilaa gaadheen inay isku faanaan oo banaanada isku soo baxaan suuqyada dhexdooda ay rag foolxumada ku sameyn jireen xagga dad kale u soo daawasho tagi jireen wax intaas u dheeray dadkii deegaankooda soo mara ama deegaankooda soo safra inay dhaqanxumadaas kula kici jireen ilaa markii dambe dadku ay deegaankaas aan marin aan xitaa marti u noqon waxaan isku raaci jireen koox waxaan u dhici jireen guriyaha dadkaas aan ka soo jeedin qabiilkooda amaan dadkaas aysan wax ka celin ragan kadib waxay kula kici jireen foolxumadaas iyagoo ku khasbaya oo xoog ugu sameynaya alla subxaanahu wa tacaala wuxuu luud u soo diray qoomkaas suugar leexiyo falka xun ay ku kaceen una soo jeestaan xaqa laakiin nabi luud kamu dharan reerkan samuud ee la dartii ayaa lagu soo diray markii alla subxaanahu wa tacaala u soo diray nabi luud qoomkiisii waxa ku dhahay waxa la timaaday faaxisho xun aan dad ininka nigu horeeyay aanay sameyn waxaanu ku dhahay maragii ayaa damacnii galay iyagoo joogan dumarkii laakiin nabi luud way ka diideen waxaana ku dhahan adigii qoyskaagaba magaaladaada naga saarna haddii joojin wada waxa wadid waana sidii maanta adduunka jirtaa وقفتو ده dhaqan xumadaas joojiya waxa la dhahayaa wax wada cunsuriyad oo qofka midabkiisa ayaad ka xuntahay nabi luud calayhi salaam wuxuu qabay gabadh aad u akhlaaq daran oo aad u xumid oo markay martuu soo yeetay nabi luud intay cararto ayuu soo jeegi jirtay raggii xumadaas ku dhaqaaqi jiray alla subxaanahu wa tacaala wuxuu quraankiisa ku sheegay aayada 10aad suurad mumtahin in xaaskii nabi nuux iyo xaaskii nabi luud ay u dhaxeen laba adoon oo saalix ah laakiin iyagu ay dul ma la yimaadeen alla subxaanahu wa tacaala wuxuu ku fogeyn doonaa naarta waana labada xaas nabi luud calayhi salaam qoomkiisa dhinac kasta uu ka maray si kasta wax ugu sheegay laakiin iyagu way ka diideen waana ku jarjeeseen nabi luud waxa rumaysay dad yar oo ay ka mid hayeen labadiisii hablood ee uu dhalay laakiin xaaskiisu waxa ka mid noqotay gaalada markastoo ku dhaca cadaabka la yaan nasiibin cadaabka la ka baqa ee ilaahay tabadkeena waxa uu jannada cadaabka sheegaysid bal noo keen sidoo eegay han eegne sida alla subxaanahu wa tacaala quraankiisa ku sheegay aayada 9aad ee suuratul huud marag ay dambac ka raadinaysan oo meelaha fadhiisanaysan ragga musaafiriinta ah markaas ay ku dheen luudow hadaa run sheegaysid kan cadaabka alle culimada taariikhdu waxay sheegaan in reer samud lahaayeen meel ay ku shiraan oo halkaas ay ku go'aamin jireen fulxumooyinka ay sameeyaan ay dadku kala kacayaan ficilkan wuxuu ficil aan ummadii ku horeeyay aan looga arag waxaan wax dhaqan ay u fahmeen in ay tahay mid la isku faano nabi luud calayhi salaam markuu ka daalay qoomkiisa waxa uu aaday gurigiisa waxaanu gacmaha loogu taagay ilaahay waxaanu dhahay الله يجيب بدبادي قوم كان فسادك بدن الله سبحانه وتعالى وكاقبلي وحان أصدر ملائكة سوء سيدي عقاب أذاك وحان الله سبحانه وتعالى أمري انتاني وتقين إنو يستيماران نبي إبراهيم ونشيغان فلنت الله وإن عذابيا قوم لوط صدقوا صاروتي آيات السجال الاحتناد سورة الهود مركي الملائكة مادن نبي إبراهيم وحوك هيلب وانو سواق دقي مركي أركينا نعوني ملائكة هيلب كنا واو يابي وحانا كردهن وحانها ملائك الله صدر إننا هلاهبنو قوم كلودا كدب نبي إبراهيم عليه السلام أي أدو مروبادي وحنا كلهن إبراهيم كانوا أمر الله كدب وح ملائكة وجهستي حاجة سمود قوم كلودا
kadib malaa'igtii ayaa u timi luud iyagoo leh suurad aadam kadib waxay maadeen gurigii nabi luud calayhi salaam kadib nabiyullaahi luud markuu arkay martidan isagu soo hoojitay waxuu ku dhahay magaalo dhinaceeda ay nagu marti soo horeeyaaye ayna marsha intii wada hadlayeen ayaa xaaskiisa barqabtad ahayd inta daba martay ayaa ragga u soo sheegtay waxaana ku dhahday dad aanan garanayn ayaa u yimi luud waana dhalinyaro aad qurux badan kadib rag way imaadeen waxaana gurigii nabiyullaahi luud soo gaadhay koox ka mid ah raggii faasiqiinta ahaa waxaanay ku dhaheen luudow miyaanan ku odhan cidna ma marti soo hori kartid haddana dibadda u soo saar laakiin iyaga waxaa ka hoos baxday in aan waxaan dad ahayn ay malaa'ig aan leeyihiin kadib nebi luud ayaa aad u murugooday waxaanu ku dhahay qoomkiisii martideeda ii daaya ee hablahaygii aji joogay hablahayga ayaa nii meheerinaya oo xalaal niiga dhigaya laakiin iyagu waxay ku dhaheen habla dooni mayne ee raggaa noo soo saar kadib nabiyullaahi luud ayaa ku dhahay haddaan awood lahaan lahaa gebigeennaba waan ibaabin lahaa kadib malaa'igta ayaa ku dhahday luudah warwarin annagu malaa'ig alla nahay waxaan noo soo diray inaan adiga iyo labadaada hablood ku badbaadinno halkana ku halaagno xaaskaaga iyo intii faasiqiinta ahayd subaxii markii la gaadhay ayuu cadaabkii alla haleelay sida ku xusan aayadda 28aad ee suuratul huud waxaa alla subxaanahu wa tacaala yidhi markii la gaadhay wakhtigii cadaabta in qoomkii dhulka lagu rogay dhagxan dab watana ay samada kaga yimaadeen ibnu katiir oo arrinkaa sharaxaya ayaa yidhi jibriil ayaa intuu dhulkii fujiyey ayuu xaggaa samada u qaaday markay samada inuu jireenna dhulka ayuu ku soo daayey waxaana ku soo da'ay dhagaxan dab wata dhagax kastana magac baa ku qornaa oo qof kasta qoomka ka mid ah magaciisa ay ku qornaa oo toos ayuu ku dhacayay qof kastana wuxuu dhagax ka dhacay madaxa ilaa naftu saas uga baxaysay kadib sidaas ayuu qoomkii alle ku halaagay waxaana sheegaan culimmadu in nabi luud iyo labadiisa hablood ay u laabteen magaaladii falastiin halkaasoo ay degnaayeen nebi ibraahim calayhi salaam kadib halkaas ay ku dhinteen waxaana la sheegay inay ku aasan yihiin magaalo loo yaqaano bani naciim naxariis iyo nabadgelyo korkooda ha aatee halkaas ay ku dhammaatay qisadii iyo taariikhdii nabiyullaahi luud calayhi salaam intaas imaanku eegi barnaamijkan inta kulmana barnaamijkan mid wax naga tegnaa sidaas iyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh وحي من القصص التي دلت على الله الجليل قصص تجلت حبكة تالله ليس لها مثيل تالله ليس لها مثيل وحي من القصص الجميل يشفى به القلب العليل وحي سماوي هما وانساب مثل السلسبيل